inaan kula wadaago duco lagu caafimaado. haddaa adiga xanuunsan tihid isku akhrisid inshaa allah waad ku caafimaadi. qof xanuunsan haddaa ku akhrisidne inshaa allah wuu ku caafimaadaa. haddaba ducadaas maxay tahay? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qof walbo annaga naga mid waxaa laga yaabaa maalin inuu xanuunsado waa adduunyo, ama caruurtaada ama faamilkaaga mid ka mid ah inay xanuunsadaan, ama qofaa jeceshihid inuu xanuunsado, ama asxaabtaada inay xanuunsadaan. haddaba arrimahaasoo kale hadday kugu dhici lahaayeen maxaa samayn lahayd? waxaa laga yaabaa inuu emergency isla markii telefoon inuu qabto 911 waco, cunuga iga xanuunsan ama waa xanuunsanahay ee kaali ka soo gaara, inuu yiraahdo ceeb miya? maya waa sax. waxaa laga yaabaa inuu culamo u yeeri lahay kaali caruurta quraan ha ligu aqriyo ama adkaar ha ligu aqriyo, ceeb miya? maya waa sax. inuu asiga laftarkiisa quraan ama adkaar kale uu ku aqri lahay, laakiin exactly wuxuu ku aqri lahay uusan ka siinaa laga, laakiin arrimaas uu sameeyey qalad miya? maya waa sax. laakiin maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago duco nebi maxamed ku salli sallallahu alayhi wasallam markuu asiga xanuunsado uu isku aqrin jiray, markii asxaabtiisa ama caruurtiisa ama qaraabadiisa xanuunsadaana uu ku aqrin jiray. saxaabadana ridwaanullahi calayhim saan anaska arki doono uu baray ayaan rabaa inaan kula wadaago. haddaba ducada si fiican u dhageyso. allahumma rabba annaas adhib ilba's washfihi wa anta ashaafi laa shifaa'a illaa shifaa'uk shifaa'an laa yugaadiru saqamaa. fiiri ducadan waxay ku bilaabatay allahumma ilaahayow maxaa ku xijisa marka? rabba annaas, rabbigii na abuuray na khalqay. tawassul waaye, ilaahay magacyadiisa ugu tawassulaysa. allahumma rabba annaas adhib ilba's, dhibkaan ihaaya ama qofkaan haayo ka qaad, jirada ka qaad. washfihi caafi, wa anta shaafi, ilaahayow qofka waxa caafiya waa adiga. waa run, dhakhtarka wuxuu ku siinaya waa sabab. meeqa dhakhtaraan tagnaa daawo laguu soo qoray oo aan ku caafimaadin, laakiin ilaahay hadduu ku caafiyo 100% waa caafimaadaysa. hadalka ma taagno. marka ilaahay waxaa ku weydiisanaysa magaciisa qofkan inuu caafiyo. washfihi wa anta shaafi markaa soo tiraahid waxaa leedahay ilaahayo waxaa caafisaa shifaa'an caafimaad laa yugaadiru saqama, aan jira ka tegaynin. qofka markuu xanuunsado daawo kastoo la siiyo weli aahaarta jirada waa ku dambaysa. qofka haddii jirkiisa wax noqdaan, haddii kareema la siiyo weli dhibacdhibacda inay ku dambeeyaana laga yaaba. qofka haddii uu xanuunsan yahay oo ku dhaco jiro ku dhacdo, aahaartii daawadii weli way ka muuqataa. laakiin ilaahay waxaa leedahay ilaahayow ishfihi, qof wax caafiya oo adiga ahayn ma jirtee. ishfihi shifaa'an laa yugaadiru saqama, jiro oo meesha aan ku heraynin. waxaa siisaa caafimaad oo aan jiro ka tegaynin. caafi, wax walba ka caafi. hal arrinoo xusud mudan, qofka markii ducadan lagu aqrinayo waxaa fiican meesha xanuunsan uu ka sheeganayo in gacanta la saaro, haddii meel gacan la saari kara tahay. nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam meesha xanuunsan qofka uu ka xanuunsan yahay ayuu gacanta saari jiray litafaa'ul, siduu ilaah ugu caafiyo. madax hadduu xanuunsan madaxa laga saaray, hadduu caloosha xanuunsana caloosha laga saaray. meesha xanuunayso ayaa gacanta laga saaray. saaritaanka gacanta la saarayo culimada waxay leeyihiin litafaa'ul waaye. nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam ducadaana barayna waa ku dayanaynaa, asigaa khayrkana bari. gacan saaritaanka haddaysan faa'iido lahaa lahayn nebiga ma sameeyeen. idan markaa xanuunsan tihid ama qof xanuunsan ha u tagtid oo ducadan ku aqrinaysid, ha hilmaamin gacanta inaad saartid ama adiga isa saartid. ugu dambayntii walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunka iyo
balwada iyo musiibada hanaga haay iyo ibtilahaba ducadan xifdi way ku anficaysaa wallahi walaalaha kalena la sii sheergaray waxaa laga yaabaa inuu jiro qof xanuunsan oo u baahan ducadan usii gudbi waxba ma khasaaraysa hadaa walaalka usii sheergaraysid waxaa laga yaabaa inuu ilaahay ku caafiyo adigana ajri aa ku heshid bakhiil ha noqonin khayrka agtaada marna yuu istaagin جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إلهي سبحانه وتعالى هعافي قف كستو حنوسا آمين لها جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنو دعوة وصعة إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله